maalin wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataa muuqaal aan ugu hadli doono waqtiga la ciyaari doono ciyaarta weyn ee bugbaxda ama kulanka playoff-ka ka oo dhaxmari doono kooxaha Horseed iyo naadiga Muqdisho City Club. dhabaanahan waxa aad u socda shirar ku aadan waqtiga la ciyaari doono iyo goobta lagu ciyaari doono. ugu dambeyn maanta ayaa la shaaciyay waqtiga la ciyaari doono iyo garoonka lagu qaabili doono ciyaartaas weyn MCC iyo Horseed. labadani kooxood waa laba kooxood sanadkan ku hardamaya inay ku guuleystaan midkood horyaalka Soomaaliya Premier League waana isku dhibco 38 dhibcood ay wada leeyihiin. farqiga goolasha Horseed ayaa sareysa laakiin horyaalka laguma qaado farqiga goolasha. waxaa loo sameeyay kulan playoff ah waxaana xiriirka kubadda cagta dhammaan wasaaradda ay maalmihii ugu dambeeyay ka shirayeen waqti la ciyaari doono iyo goobta lagu ciyaari doono. maanta oo ay tahay maalin Talaado ah ayaa ugu dambeyn la shaaciyay maalinta la ciyaari doono iyo goobta lagu ciyaari doono. inta muuqaalkiina u guda galeen waa inoo muhiim in like inoo soorto muuqaalkan si ay saaxiibo badan u gaarto muuqaalkiina una share gareey saaxiibadaada si aan u helno saaxiibo adigoo kala ku xiran page-keena. waad mahadsantiin. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa xarunta aqalka dawladda hoose xamar kulan kula qaatay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed iyo xubno kale oo ka shaqeeya qabsoomida ciyaarta finaalka taa oo dhaxmari doonta kooxaha Horseed in naadiga lagu magacaabo Muqdisho City Club. ugu dambeyn dhamaantooda waxay isku wada afgarteen in la ciyaaro kulankaasi 2 bisha Agoosto oo ku beegan maalinta Isniinta. waxaa lagu ciyaari doonaa garoonka Engineer Yuriso Stadium Ex-Conis ee degmada Cabdicaziz. waxaa aad loo hadalhay in lagu ciyaaro Stadium Muqdisho iyo Engineer Yuriso. ugu dambeyn waa la shaaciyay Engineer Yuriso Stadium ayaana ciyaartaasi ka dhici doontaa. labadan kooxood waxay diyaar garow adag u galeen ciyaartan weyn midkood ayaa ku guuleysan doona sanadkan waxyadan dusha loogu shubi doonaa horyaalka Soomaaliya Premier League 2021-22. Horseed oo ku taamisay muddo 40 sano inaysan ku guuleysan horyaal ayaana sanadkan qaabili doonta naadiga MCC oo rabta markii 10aad inay ku guuleysato ahna markii labaad xiriir ah ay rabtay inay ku guuleysan naadiga MCC. laakiin diyaar garow labada kooxood waxa laga dheehan karaa inay yihiin ku u heelanba in midkood uu ku guuleysto horyaalka Soomaaliya Premier League. 2 Agoosto ayaa lagu balansan yahay garoonka weyn Engineer Yuriso Stadium ee degmada Cabdicaziz ee gobolka Banaadir. haddaba haddii aad daawanayso muuqaalkan yaad guush u rajaynaysaa sidaadna u aragtaa in lagu ciyaaro garoonka Engineer Yuriso Stadium iyadoo loo sameeyay in lagu ciyaaro halkaas xaalad amni badqabka taageerayaasha iyo ciyaartooyda sababtoo ah garoonkan wuxuu qaabili karaa taageerayaal fara badan inkastoo Stadium Muqdisho yahay mid kale oo aad u badan taageerayaashiisa ku dhawaad 65,000 ayuu qaabili karaa. Engineer Yuriso Stadium waxaa loogu dhigay xaaladda amni iyo xakameynta taageerayaasha. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkeena.